gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo xarun caafimaad oo laga hirgelin doono duleedka degmada Rakenle. xaruntaas oo ay ka faa'iideysan doonaan bulshada deegaankani. dhagax dhiga mashruucan ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaankani maadaama aysan jirin xarun caafimaad oo u dhow. hase ahaatee hirgelinta MCH-kan ayaa la filayaa in dhawaan la soo gabagabeeyo. duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa kulan gaar ah la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Rakenle isagoo ka dhageystay baahiyaha ka jira deegaanka iyo sida loogu gudbi karo. waxaan kaloo ka codsaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ama duqa magaalada haddaynu nahay dadka deegaanka ku nool oo degan inuu aan ka helno haddii Ilaahay yiraahdo meesha hadda oo ka dhex dhigay MCH-ka inuu noogu daro haddii alla kugu diidin waax inuu noogu daro oo gudoomiye waaxeed oo si deegaanka haddaynu nahay intaas gudoomiyahan ka codsanaynaa waxyaabo badan aan u baahanaa. MCH-ka maanta gudoomiyaalku ay dhagax dhigeen kowka ah land station-ka kamida suuqa kamida isbitaal waxa kamida iskool intaas oo adeegyadii dadweynaha ah waxba kama haysano. waxaan codsi u nahay in madaxda sharaf kale qiiqa sidii markii horeba odagu oo yiri ma aanan arag gudoomiye gobol ama gudoomiye degmo oo quraan hoostiisa nagula qadiyay ma aanan arag. gudoomiyaha degmada Rakenle ee gobolka Banaadir mudane Guad Sheekh Xasan ayaa ka hadlay ahmiyadda mashruucani oo aan aad ugu mahad celinayo sida ay u garteen in ay u bixiyaan xarun MCH oo hooyadii dhallaanka maadaama deegaankan uusan lahayn wax isbitaal ah MCH-na uusan u dhoweyn. runtii qadiidaas maraan ka wada hadalnay balantii ay qaadeen way oofiyeen oo dhulkii way bixiyeen. waxa dhiman dhulkii ay bixiyeen inay nala dhisaan ka degma ahaan iyo ka deegaan ahaanba inaan MCH-kaas ku guuleysanayna dhisno insha Allah taala. runtii deegaankan waa baaxad weyn yahay sida arkaysid 5 waax ka dhisan laakiin haddii si dhab loo fiiriyo ilaa 10 waax degmada Rakenle way noqon kartaa sababtoo ah deegaano waaweyn oo aad u fidayo waaye. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu kula dardaarmay bulshada deegaankani in ay ka shaqeeyaan horumarinta goobaha loogu talagalay danta guud. haddii degmo la samaynayo haddii wax la samaynayo la iskama sameeyo waxay leedahay shuruudo ayay leedahay. shuruudahaas waxaa ka mid ah wadooyin ayaa ka mid ah baxsan oo habaysan dhulal dan guud ah oo xarumihii ama MCH-kii ama maxaa la yiraahdaa saldhiggii ama maxaa la yiraahdaa xaruntii maamulka ana qaybihii danta guud oo dhan in la helo ayaa laga maarmaan. sidaa darteed haddii aad aragto wax maamul ka shaqeeyey ee uu ku guuleystay wax iska yimid maahana waxay ku timid iskaashi u dhaxeeya maamulka iyo dadka meesha degan. dadkiina marka waxaa laga rabaa wixii annaga karaankeenna waa qabanaynaa haddana waan qabano waad u jeedi. waxaa laga rabaa marka goobaha aad codsanaysiin deegaan ahaan macnaha dhul ahaan ayaa laydinka rabaa adig oo aad tidhaahdaan halkan waxaan ugu talagalnay waaxdii ee hana loo dhiso. halkan waxaan ugu talagalnay garoonkii ciyaaraha hana loo dhiso. halkan waxaan waxaan ugu talagalnay sportigii waxaan ugu talagalnay goobtii booliiska. goobahaas ayaa bulshada laga rabaa. maamulkuna goobihii bulshadu la timid ayuu ka howlgelayaa dhismahooda. dhismaha waxaa suuragala inaan markaas dhaqaale loo heli karin laakiin haddana bulshada iyo maamulku hadday iskaashadaan wax badanaa suurageli kara. arrimahaas marka waa iska kaashan doonaa waana rajaynaya inay noo suuragalaan. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.